sida caadadii iyo ahba kolkan dhammeey akhrinta sheekafaneed waxaan dib u rogrogaa badweyntii aan soo jeexay si aan mar kale u dhadhamiyey macaankii ay baalasha buugga iga qariyeen kolkii hore. deedna waxaan kala furaa kombiyuutarkayga si aan u soo koobo dhumucda sheekada iyo weliba falsafada ku duugan. hase ahaatee akhrinta buugga Dowliyada iyo Aadanaha waxuu igu reebay saameyn xanuun badan. weliba 4 buug ee ugu dambaysa ayaa aad u xoogaya dulduleelada qalbiga qofka, ilaa aan isweydiiyey sababta uu qoraaga buuggani uu u jeclaystay inuu sheekadiisa ku soo gabagabeeyo xaaladaasi aanan la mahdiyin. si waxaan isku qanciyey inaan ku qasbannahay mararka qaar inaan liqno dacar qaraar oo ay wax weliba noqonayn sida aan rabno, waayo dhammaadka nolosha ayaaba ah lafteeda wax aanan la mahdinin. sidoo kale qof weliba oo dhimanaya haddii la weydiiyo wixii uu codsan lahaa kolkaasi waxaa hubaala inuu jeclaysan lahaa inuu sii noolaado, xitaa haddii uu og yahay in noloshu tahay siliciisa xariir. sigacaliyayaal inta aan gudagelin barnaamijkeena maanta waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe saartaan channelkeena. fadlan ha ilaawin inaad la garaysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina. mahadsanidin. sheekafaneedka Dowliyada iyo Aadanaha waxaa qoray John Steinbeck. John Steinbeck wuxuu noolaa 1902 ilaa 1968. wuxuu ahaa qoraa caan ku ah sheekafaneedyada gaagaaban iyo weliba suxuf u dhashay dalka Mareykanka. wuxuuna diiradda ku saari jiray badiba buwaagtiisa cadaalad darrada dunideena ka jirta, halgan nololeedka qaybaha kala duwan ee bulshada, sharafta qofka, qaxootiga iyo weliba dulsaar noqoshada. haddaba buuggani wuxuu qoraaga kaga hadlayaa 2 nin oo saaxiibo ah oo la kala yiraahdo George iyo Lenny. George waa nin caata oo caqli badan, halka saaxiibkiisa Lenny uu yahay nin xoog badan oo laf weyn, hase yeeshee caqli ahaan aad u liita. si ay uga dhabeeyaan hamigooda inay yeeshaan beer iyaga u gaar ah ayay shaqaale u noqonayaan. si caqli yaraanta iyo hilmaamshiyaha joogtada ah ee Lenny ayaa markasta caqabad ku noqota noloshooda. Lenny wuxuu u jecel yahay salsalaaxidda dooliga, bakaylaha iyo weliba eeyaha yaryar. si awooddiisa oo xooggan dartii ayuu xayawaankii uu qabtaba u dhimanayaa. xitaa meel ay ka wada shaqaynayeen isaga iyo saaxiibkiisa George ayuu maalin gabar joogta diriceeda oo aad u khafiif ahaa taabtay. gabartii oo aad u argagaxda ayaa qaylisay. deedna labadoodii goobta ayay isaga soo carareen si ay u raadiyaan rootiga ay cuni lahaayeen, noloshana ugu sii nagaadaan. ayay aadayaan tuulo kale, deedna halkaas ayay shaqo ka helayaan. beerta ay ka shaqaynayaan ninka iskale waxa uu dhalay wiil lagu magacaabo Carly. waxa uuna qabaa gabar aad u qurux badan si aanan isaga jeclayn. Carly waa nin aad u kibir badan oo ismahdiyey ilaa heer uu gaaray inuu daadaansado miskiinkii Lenny. Lenny maadaama uu xoog weyne yahay wuxuu gacanta ka jebinayaa kibir badana Carly. deedna Slim oo ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya beerta ayaa Carly ku qancinaya inuusan dadku u sheegin inuu gacanta ka jebiyo Lenny. haddii arrintaasi la ogaadana lagu maadsan doono uuna ka dhaxli doono ceeb iyo in loo arko nin daciif ah. xaaska Carly had iyo jeer waxay jeceshahay inay dhalinta la haasaawdo lana sheekaysato. si gaara waxay isku dayaysaa inay ka agdhawaato Lenny. George ayaa si mugdheer leh ula dardaarmayay saaxiibkiisa isagoona ku dhahayo ha la hadlin, ha fiirinin naagtan, waayo musiibo ayay noo soo jiidi doontaa. shaqada ayaana inagala ceerin doonaa, mana ku gungaari doonna hankeena ah inaan yeelano beer aan inaga leenahay. adiguna ma heli doonti bakeyle aad salsalaaxdo. shaqaalaha beerta waxaa ka mid ah Candy oo ah oday duq ah oo aanan dunida u joogin wax ehel ah. si lahaa ay duq ah oo soo kamkama misana ur badan. hase ahaatee eygiisa maadaama uu howlgab noqday, urkiisana aan loo adkaysan karin, waxaa loo soo jeedinayaa in la dilo. weliba waxaa Candy lagu leeyahay eyga adiga miyaa dilaysid mise mid ka mid ah shaqaalaha ayaa dilayo. Candy maadaama uu aad u jeclaa eyga wuxuu awoodi weynayaa inuu dilo. deedna mid shaqaalaha ka mid ayaa bastoolad madaxa kaga dhufanayo. Candy wuxuu bilaabayaa durbadiiba inuu isla hadlo isagoo leh aniguna maalin maalmaha ka mid ayaa la ii dili doonaa sida eygayga oo kale, maadaama aan aniguna duqoobay oo aan howlgab noqday. Georgeow
aan anigana lacagtii aan aruursaday idinkula shuraakoobo oo aan yoolkiina ka mid noqdo. liini wuxuu maalin maalmaha ka mid aadayaa xerada eeyaha. deedna isagoo salsalaaxaya una muujinaya dareen ayuu eygii ceejinayaa. deedna eygii waa uu dhimanayaa. durbadiiba liini waxa uu bilaabayaa gucasho iyo inuu isla hadlo. waxa kaliya uu had iyo jeer isweydiinayana waa in George haddii uu ogaado inuu dilay uusan ku aamini doonin la joogista bakeelayaasha. si ugu dambayn waxaa liini u imaanaysa xaaskii Carly, waxayna ka codsanaysaa inay waqti la qaadato oo ay la sheekaysato maadaama ay xaafadda ku soo cidlootay. liini wuxuu mar waliba ku soo celcelinayaa iga fogow, mar raba inaan kula sheekaysto waayo George waa uu iga xanaaqayaa. sidoo kalena wuxuu iga digay inaan adiga kula hadlo, mana raba inaan George dhibaato u soo jiido. saxaaska Carly waxay ku adkaysanaysaa inay la sheekaysanayso, weliba xitaa waxay bilaabaysaa inay arrimo iyada u gaar ah oo aynan hore cidi ula wadaagin uga sheekaynayso liini. liini wuxuu ku adkaysanayaa inuusan rabin la hadalkeeda. deedna waxay haweeneydii bilaabaysaa inay u soo dhawaato oo ay tiraahdo, maxaad iga qarinaysaa? alla eygii miyaad dishay? durbadiiba liini wuxuu ugu jawaabayaa, anigu eyga ma aanan dilin ee keliya waan salsalaaxayay, waayo waan jeclahay inaan salsalaaxo timaha jilcan. haweeneydu waxay ku leedahay, kaala timahayga dhirirka badan salsalaax. deedna liini wuxuu bilaabayaa inuu salsalaaxo timaheeda. si nasiib xumo wuxuu kantarooli weynayaa maskaxdiisa. deedna wuxuu bilaabayaa inuu si adag u jiido timaheeda. haweeneydii waa ay qaylinaysaa. liini si uu u aamusiyo ayuu afka iyo faruurtaba ka qabanayaa, wuxuuna isku dayayaa inuu aamusiyo oo uu dejiyo gabartii. dhanka kalena wuxuu ka baqayaa inuu George ogaado arrinkii uu sameeyey, deedna uu ku aamini waayo mustaqbalka inuu xanaaneeyo bakeelayaasha. alla nasiib daraaye, liini si lama filaan ayuu qoorta ugu jabinayaa xaaska Carly, deedna waa ay dhimanaysaa. liini wuxuu isaga cararayaa goobtii, isagoo aadaya goob ay ku heshiiyeen isaga iyo George inay ku kulmaan haddii ay dhibaato dhacdo. Carly, Slim, Candy iyo weliba George waxay ogaanayaan in qofka dilay xaaska Carly uu yahay liini. Carly waxa uu qof waliba ku amrayaa inuu baskoolad soo qaato si aragti loogu toogto liini. George wuxuu isku dayaa inuu dejiyo Carly oo uu ka dhaadhiciyo inaysan liini aysan ka ahayn kas dilista xaaskiisa. Carly waxa uu leeyahay, adiga laftaada ina soo raac oo ina la raadi liini, haddii kale waxaan aaminayaa inaad qayb ka tahay dilka xaaskayga. George wuxuu si toos u tagayaa goobtii ay liini hore ugu heshiiyeen oo gambaadka u ahayd. deedna wuxuu la sheekaysanayaa liini, isagoo dejinayo, dareensiinayana inuusan ka xanaaqsanayn wixii uu sameeyey. dhanka kale George wuxuu maqlayaa codka Carly iyo kooxdiisa, wuxuuna bilaabayaa inuu liini uga sheekeeyo beerta ay samaysan doonaan iyo weliba sida uu mustaqbalkooda u noqon doono mid baraari iyo barwaaqo ah. sidoo kale George wuxuu ka codsanayaa saaxiibkiisa liini inuu fiiriyo webiga hortiisa ku yaalo oo uu suuraysto mustaqbalkaasi quruxda badan. deedna wuxuu madaxa ka tooganayaa saaxiibkiisa liini, isagoo ka badbaadinayo inay Carly iyo kooxdiisaba ay si silic iyo saxriir badan u dilaan. deedna waxaa halkan kusoo gabagaboobayo yoolalkii, hankii iyo wadajirkii George iyo liini, wuxuuna buuggan akhristayaasha ku reebayaa murugo iyo maroor dilaac. alla maxaa ka xanuun badan inaad ku baxdo gacanta saaxiibka, maxaana ka farxad badan inuu saaxiibkaasi kuu diiday silic iyo saxriir inaad u dhimato. oraahyada cajiibka ee ku jira sheekafaneedkan waxaa ka mid ah, aadanuhu si uu u noqdo qof fiican caqli uma baahna, xitaa mararka qaar cagsigeeda ayaanba aragnaa. bal suurayso qof caqli badan, waxaaba durbadii fahmaysaa inuusan wanaagsanayn. bal fiiri dadka aan ku tuhunno xumaan oo dhan, maskaxdooda si waali ayay u shaqaynaysaa. riyada ahi in qofku uu dhul yeesho waxay la mid tahay in janno la galo oo kale, waayo qof kasta waxa uu doonayaa xoogaa yar oo dhul ah. maalin kastana dadku way ka hadlaan riyadaasi, laakiin weligood ma rumeeyaan. qofku had iyo jeer wuxuu u baahan yahay qof agtiisa jooga. bal suurayso qof habeen keligii meel cidlo ah joogo, buug ayuu akhrinayaa ama wuu iska fadhinayaa isagoo fikirayo. xitaa markuu wax arko si buuxda uma hubi karo wixii uu arkay, sababtoo ah ma jiro qof uu tuso, isagoo dhankiisa u jeesanayo. deedna uu ku leeyahay, adiguna ma aragtay. xumaan igama ahayn Georgeow, keliya inaan jeclaado ayaan rabay.
waxaan kuu sheegayaa hal arin. hadduu qofku muddo aad u dheer keligiis ahaado waa uu xanuunsadaa, kelinimada ayuu ku xanuunsadaa. had iyo jeer buwaagtu waxba ma taraan, qofku wuxuu u baahan yahay qof agtiisa jooga. ugu dambayn, haddii aad halkan nala soo gaarteen, la jirkiina farxad ayay noo tahay saaxiibayaal. inta aan barnaamijka xigay kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.